ugu dambeyntii sugitaanka waa dhamaaday ya hawayaan caawa waa loo yaabaa ya dad badan waxay dhaaban arkaya ya qaarkood waxay ku leeyihiin war haddii laga badiyo waxa weeyaan ya soo baxo ma jira xataa magaalka aan ooyeysan loo galay ku leeyihiin biri dambu bay soo baxayaan arcaaw caaw bay tahay yaaqay ya natiijadan horyaalka Premier League ciyaar baa ka dhiman laakiin natiijada muhiim ay u tahay Liverpool hadday adkaato horyaalkan iyaga inay qaadi karaan baa loo arkaya haddii siday adkaato City Janis ugu fiican haysto horyaalka inay ku qaadi kartiga loo arkaya xataa hadday baraajo ku dhamaato maanta Liverpool baa loo yaabaa still ogta Liverpool balaayada horteeda jirta walow balaayo caafimaad qabaan u hayn Manchester iyo Everton waxba xagga jira laakiin City jabaya ka horeysa laakiin madax adag marka City waxaan ka war Liverpool waxaan ka ahayn gool uma fiicna maanta Cityna labadaba way ku qaadan karaan kuwa kan haday guuleystaana ciidamada soo iska tuurisa marka waa ka sawirkan waa kulankii hore laba ayaa lagu kala baxay October Kevin ba shuquleeyay maalinka oo bareejiyay ciyaarta waliba Man City maanta waxa uu soo laabanaya Kyle Walker oo seegay ciyaartii ugu dambeeyay Europe Champions League uu maqnaayo ilaa hadda ganaaxi buu ku maqnaa marka maanta Premier League uu ciyaari doona Europe tartankeedu ku maqnaa Diaz iyo Cole Palmer ayaa maqnaan doona tawbaraha Liverpool wuxuu xaqiijiyay Fabinho fid u yahay ciyaartan kadib markii waxay ka soo gaareen ciyaartii Benfica isaga iyo Ottomandis qabanayeen Liverpool laakiin waxay ku jirtaa bandhig fiican maxaa yeelay 10 ciyaar xirib iminka soo badiyeen Liverpool waxay hadda doonayaan inay helaan maanta guushoodii 11aad horyaalka Premier League xiriir ah haday maanta badiyaan City hogaanka way ka qabanayaanba ya marka Liverpool waqti fiican bay ku jirtaa 10kii ciyaar la soo dhaafay xirib ay u badinayeen tan 11 kaga dhigaan bay kuwan doonayaan laakiin still warbaahintu waxay arkayaan sida BBC oo kale waxay leeyihiin ciyaartan waxaan arkaynaa bay leeyihiin inay ku dhamaan karto 2 gool iyo 2 gool ciyaarta barbara loo saadalnaya oo yani waxa la isleeyahay labada maba kala baxayaane barbara loo saadalnaya laakiin waxay u badan tahay maalin guuldaro in la qaato xanuunkeedu u weyn yahay way suurtagal way tahayo bareejurtu waa jiri karaa laakiin in la kala badin waa suurtagal weyn laakiin guuldaro kulka ka timaada ar xanuun dad badan ku reebi doonto ar anfurka xilli hore iska cuna anfurka xilli horumarsada wixiina horumarsada lixda maqan markay soo galaysaa moogtahay wixiina marro meel saarta ya adhow aniga wax mucay kare iyo kan bulo waayo iyo ya waa lagu cunaa ya ninkii wixiisa cuni waayo waa loo cunayaa iyar aniga ninkii laga badiyo badarkiisa u dhaafo micnaha ma cuni kari aniga ii wac shaqo maradid waxaad hadda horumarsan dadka qaar ciyaaraha adag markay jiraan cuntooyinkooda horumarsan jireen micnaha wax naaqsanahay iyo wax ma taaban kari iyo kamalo wayaan isku haddaba horumarso sidii marwaaxadii oo kale xataa u cun ku kor wareego ya meesha awara ka soo socdo waa ku badar wayn kartaa meesha taayo ya qay dadku maxay laakiin heerka ciyaarta nooca ula gaaraysa isleedii miya dadkiina dad caafimaad qawmatiin dadkan dad horyaal u tartamayo wayaan idinka micnaha ilaa xalkiin iska og dadkiina kala wax taageero Premier League kooxo waaweyn taageer baan ka hadlaya dadkan heerka waxaas aan ugu sheeg waxay tahay serious bay ka maraysaa ilaa wada tartamaye ya idinka ma tartamada ku jirtiin ba micnaha jawaan saxankiina intaad cuntaan fiyoraha soo bixin kartaan wax caadi la tahay laakiin dadka horyaalka u tartamaya baa waxa laga yaabaa inay saameyn ku yeeshaan qaarkood leeyahay wixii horumarsada Liverpool waxay u socotaa Etihad runtii halkan Liverpool ay ku dhiban tahay waxaana ku cadeynaysa midaan Man City hal jeer ayaa looga badiyay gurigeeda 12kii ciyaar la soo Premier League gurigooda kula ciyaareen nimanka Liverpool la yiraahdo 7 jeer Man City baa adkaatay 4 jeer baraj baa la galay hal Liverpool baa adkaatay waa sababta Liverpool ay ugu adagtay Etihad iyagu haday anfilayaan Etihad baa inuu balaayo ku ah mujida 12 ciyaar la soo dhaafay horyaalka lagu ciyaar Etihad Man City Liverpool ay ciyaareen Liverpool hal bay adkaatay 7 City adkaatay 4 jeer baraj la galay halkan marka waa ku dhiban yihiin nimanka la yiraahdo Liverpool mid kale Liverpool sidoo kale xataa maanu ka badin Man City 4 ciyaar la soo dhaafay Premier League ayaantan Liverpool waa la haystaa daacada marka laga hadlo Sheikh Mansour nimanka Liverpool lagu yaciin karo waa iyaga le waba yacni nimanka dhigi karo oo indhaha birtooda ku dhufa karo wax ka sii kara waa una iyaga sababtoo ah Etihadna 12 jeer hal ciyaar bay ku soo badiyeen waa 12kii ciyaar soo horyaalka 7 jeer lagu soo garaacay haddana 4 ciyaar soo horyaalka marna ma u adkaan Liverpool oo ma Liverpool wax gulman u gaarin haday maanta darbadi waayaan 5 ciyaar bay noqon doontaa Liverpool ka badin Man City bay noqon doontaa 4 ciyaar soo Premier League maxay noqdeen maxay ku dhamaadeen taqana marna City laba jeer adkaatay laba jeerna baraajo baa la galay taasna waa taa hatta Liverpool ma dhacdo hatta markay Etihad aadaan inay goolkooda ilaashtaan 12kii ciyaar soo horyaalka labadan kooxood ku dhex maray Etihad
marna Liverpool goolkeeda maan ilaashan mid kale kan waa kulankii 23aad oo labadan tababare kooxay hogaaminayaan ay iska hor imaanayaan yani Jordi Klopp kooxu hogaaminayo iyo Guardiola kooxu hogaaminayo iska hor imaadaan waa markii 23aad weeyaan iyadoo ay labada ninba kala qaateen 8 guula 6 bareejo ah marka laga saaro ciyaaraha goorgoorada ah mid kale haddaan u degno dhanka Man City waxa weeyaan 8 jeer bay ku adkaatay gurigooda 9kii ciyaar soo dhaafay kaliya waxay guuldar ka soo gaartay marka laga reebo tii Tottenham guuldar ka soo gaaraysa mooyaane ayaan tan gurigooda ku xoog badan yihiin mid kale City waa la og yahay dhammaan waa kooxda 23kii ciyaar soo dhaafay ama 23 ciyaarood oo ay xagaagan hogaanka Man City qabteen way badinayeen waa kooxda marba hadii gool ku hormarto ciyaareed ay badiyaan laakiin may dhicin baa leeyahay taariikhda koox in Real ku dhamaysto xilli ciyaareedka iyagoo gool ku hormaray aan laga daba imaan City waxay u socotaa sasbaysan u socotaa ya xilli ciyaareedkan City kulankay hogaanka qabtaanba Premier League way wada badinayeen dhammaan 23 ciyaar hogaanku qabteen ciyaarta gool ku hormareen ma laga bareejaynin iyagu baa badinayay dhibcana ma inuu khasaarin Man City kulamada nooca iyo ka waan arki doonaa hadii galabtay hormaraan nimankan hadii ka daba imaan doonaan nimanku isla ciyaaraya nimanna maqaarkoodii wataan waa City nimanna waxay ciyaaraan banooni ku dhisan daf laadad fardis goolal bay wataan oo waa laba nin dhinac oo caadi ahayn weeyaan Guardiola cayda xuguma hadda waxa laga yaabaa Guardiola wax iska hagaajiyaa suurtagal maanta shaxda Klopp hadda wuxuu ku madax ku xanuunaya war ma fa forbaad ciyaarta maalinka afar weeriyam ku gelisaa mise shan weeriyam u gelisaa uu isleeyahay maanta inuu xal wax badan buu ka fikiraya maalinka ya Mohamed Salah wali form fiican ku jirin laakiin waxa leeyahay maad ka dhigtay Diaz Jota Mane iyo Firmino laakiin waa laga yaabaa Mohamed markaas ma laga maarmi karaye yaanu xataa gool caadi yaanu ku dhalin oo rigoor aan ahayn tan February isagoo gool caadi ma dhalin rigoor waxaan ahayn mooyaane ya marka taas tawbru ka fikiraya Liverpool aw Guardiola caadi ma la caay wax uma darin ya uguma darin waa istuusi waxa la rimaalido la qabtay ciyaarta midka hor waxa la raadinay ciyaaraha weyn maxaad u dhankaxdaa baa la wariyaa dhaxda shaxda u waashaa watii la dhahay macnaha waxa isku habeedaysaa baa la wariyaa isku yara ya marka kulan weyn ciyaarayso shaxda dhabaad waashaa marka ciyaarta wax badan ka fikirto fikirkaaga xad dhaafka ciyaartu ka wala la wariyaa marka buu habeenkii garaacay kuwa ka shaxdiis aad u nidaamsan marka ninka warka maalinlooda la dhahay uguma badarin ba ileen waa tii qalday finalka Champions League ciyaartii Chelsea la ciyaarayeen waa tii Lyon u qalday waa tii ciyaaro badan u qalday marka waa ka waliba Liverpool Man City xagaan waa labada koox ugu shaqalaashada badan laakiin nin bay tahay Liverpool ka iska jiraan waa Phil Foden cunugaas mucjise weeyaan wanigi kala furfuray nimankii haraantida badnaa iyo dagaalka badnaa ee Leeds Madrid Foden markastoo ka hor imaanay Liverpool gool buu ka dhalinay saddexdii jeer ugu dambeeyay ka hor imaanay shabaqoodu waa gaaray halka ciyaaryahan ee 4 jeer isku xigtay Liverpool gool ka dhaliyay wuxuu ahaa Jamie Vardy kaasoo xataa Liverpool ku sameeyay 5 ciyaar isku xigtay inuu gool ka dhalinay intii u dhaxaysay 2017 sidii Vardy u haystay oo kale iminka waxa uu haystaa Phil Foden oo 3 jeer xiriir kuwan gool ka dhalinaya Mahrez waniga uu goolasho badan Man City waliba Man City ninka u ciyaara Mahrez wuxuu doonayaa maalinka inuu noqdo ciyaartoygii saddexaad ee Man City oo 6 ciyaar isku xigtay Premier League gool ku dhaliya kulamada Etihad lagu ciyaariyo xiriir ah ama garoonka Man City nin 6 ciyaar xiriir gool ku dhaliyo wuxuu ahaa laba nin bay ahaayeen oo Owi Rosler 94 iyo Alvaro Negredo 23 kan hadda kulankii lixaad xiriir buu doonayaa maalinka inuu halka gool ku dhaliyo waa ninka ugu khatarta badan City way xaga kano waa ka Riyadh dhowr iyo 20 iyo 2 gool meelaha buu marayaa waa ka Liverpool haddaan xageedu eegno Liverpool nimanka la yiraahdo waxay maalinta ku dhamaysanayaan iyagoo haya hogaanka Premier League markii ugu horeysay tan iyo October hadii ciyaartani badiyaan Liverpool maalinta inay ku dhamaysato maalud macnaha si ku meel gaar ah waxaas laga hadlayo maalinta inay gabal ku dhaco iyadoo Liverpool yaani maalintan ay ku dhameystaan iyagoo hogaanku haya Liverpool waxa ugu dambeysay abu bishii October nimankan hogaankan waa ayaantan waa arki waayeen ya marka Liverpool hadii adkaadaan waxay hogaanka qabanayaan markii ugu horeysay tan iyo bishii October waliba maraysaadku kooxdoodu ka dhisan ayaa 10 ciyaar xiriir hadda soo adkaaday iyagoo 8 kamid ah shabaqooda soo ilaashtay walibana 8 ciyaar soo xigtay banaan ku soo badiyeen waa sababta lagu baqayo maanta armay ku soo gabogayaan Etihad wararka ka haysta sababta hadda 8 ciyaar soo xigtay banaan ku soo badiyaan 10 ciyaar xiriirna way wadaan guulaha oo yaani horyaalka marka waa sababta la isleeyahay arbay maanta kuwan guul ku soo gaari kara halka mid kale Liverpool hatta qaybta kood wali gool laga dhalin 19 ciyaarood la soo raftay tamado dhan nimankan qaybta kood waa jug waa la siilaa macna nimankan maxaa laga badiyaaba kooxda ka soo rijido waxa laga rabaa nimankan gool ka dhalin ma laga dhalin kara nimankan qaybta koodba 19 ciyaar soo dhaafay marno ma dhicin kuwan goolkooda la gaaro qaybta koowaad marka waa ka wali Liverpool marka laga tago United oo 10 gool ka heshay ciyaartoy bedel ku soo galaya Liverpool in 8 gool bay ka heshay ciyaartoy bedel ku soo galay xilciyaareedkan Premier League waa koox kale qatar badan Mohamed Salah ba inay tahay City iska ilaaliyaan ninkan oo bariyahan gool la'aan iska ba goolashiga guureenba
maxamed saalax ayaa doonaya in 4 ciyaar isku xigta uu gool ka dhaliyo Premier League kooxda Manchester City ciyaaryahankii ugu dambeysay sida Man City ku sameeyay wuxuu ahaa Jamie Floyd Hazelban oo sida ku sameeyay City ciyaar isku xiga 5 ciyaarood 2000 ilaa iyo 2003 marka maxamedna waan arki doonaa iyo kullay maalin weyn weeyaan waraa jiri doona balwiishka hayro labada tababare iska hor imaanayna waa laba tababare oo iyagu guuldaro ku badan isgaarsiin tusaale waxa uu leeyahay ma jiro macallin Guardiola guuldaro badan ka soo gaartay oon ahayn Jurgen Klopp sidoo kale waxa uu leeyahay Jurgen Klopp macallin guuldaro ugu badan ka soo gaartay waxa weeyaan Guardiola labadooduba waa laba nin la isku